يا طالبا للعلم في الأمصار يا طالبا للعلم في الأمصار لا تلهينك نشرة الأخبار، وعليك بالتعليم لا تعدل به شيئا ولا بشيوخه الأبرار. كلا ولا يشغلك عن تحصيله ما بث عبر تردد الأقمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo kitaabka loo yaqaano alqawaacid alarbac qaacidooyinka afarta ah. sidii kutubtii hore ee aynu soo wadnayba waxa aynu ugu talagalnay inaynu macnaha carabiga un aynu ka gaadhsiino, wixii sharaxana culimada loogu laabto haddii ilaahay idmo. kitaabkan waxaa qoray maxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan atamiimi ayaa qoray. imaamkaasaa qoray, imaam beri dhawo dhintay buu ahaa. kitaabka ayaynu iska bilaaban doonaa haddii ilaahay idmo. bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ku bilaabay imaamku. as'alu llaha, waxaan ilaahay weydiisanayaa alkariim, allaha sharafta leh, rabbi alcarsh, ee carshiga iska leh amba rabbiga u ah carshiga, alcadiim carshiga weyn, an yatawallaak, in uu ilaahay subxaana wa tacaala xigto kaa dhigto, fi dunyaa adduunyada, waalaakhara iyo maalinka dambe, wa an yajcalaka inuu kaa yeelo mubaarakan mid barakaysan aynamaa kunt, meel kasta oo aad joogto, wa an yajcalaka iyo inuu kaa dhigo miman cidda idaa uctiya marka wax la siiyo shakara mahad celiya. marka sheekhu wuxuu u ducaynayaa ardayga. waida btuliya, marka la imtixaamo in ilaahay kaa dhigo kuwa sabra sabra. waidaa adnaba, markuu dembaabo istakfara, ilaahay dembi dhaaf weydiista. faina hadihi halaath, arrimahan saddexda ah, cunwaan asacaada, farxadda iyo badhaadhaha ayay cinwaanu yihiin. iclam, waxaad ogaataa, arshadaka allah, ilaahay ha ku hanuuniyo, lidaacatihi, inaad adeecda ha kugu hanuuniyo, ana alxaniifiya, in diinta toosan, millata ibraahim, diintii nebi ibraahim ahi ay tahay, an tacbuda inaad caabuddo allah ilaahay waxdahu keligii, mukhlisan adaa u badhax tiraya, lahu isaga addiina cibaadada. wabidaalika sidaasi amara allahu ayaa ilaahay faray jamiica annaas, dadka dhammaantood, wa khalaqahum laha, iyada ayaanu u abuuray cibaadadaas. kamaa sida qaala allahu, ilaahay u yidhi, qaala tacaalaa, wamaa khalaqtu maan abuurin aljinna, jinka iyo wal-ins, bani aadamkaba wuxun baan u abuuray, ilaa liyacbuduun, inay caabudaan mooyaane. fa idaa goortii carabta aad garato anna allaha, in ilaahay khalaqaka uu ku abuuray licibaadatihi, inaad isaga caabuddo, faclam, waxaad ogaataa ana alcibaadata, in cibaadadu laa tusamaa, aan lagu magacaabin cibaadatan, cibaado aan la odhan, ilaa hal mar mooyaane. markaasna waxa weeye maca tawxiid, waa markaay la jirto tawxiid iyo ilaahay keliya in la keliyeeyo. kamaa sida ana salaata, salaadaba amba salaadaynu tukanaba, laa tusamaa, aan loogu magacaabin salaatan salaad, ilaa mooyaane maca atahaara, marka qofku weyse qabo. fa idaa goortii dakhala uu galo ashirku, shirkigu amba ilaahay oo cid kale la wadaajiyaa, filcibaadati, cibaadadii aad samaynaysa marka uu soo galo, fasadad, way xumaataa. kalxadath, sida weyse jabkuba, idaa dakhala marka uu soo galo, fi tahaarati, weyse qabkii. marka adoo weyse qabay haddii weysadu kaa jabto, sida wixiiba ay u xumaadaan, cibaadadii aan cibaado u noqonayn, ayaa haddii qofku shirkigii uu cid kale la wadaajiyay, cibaadadii ilaahay ay u xumaanaysaa cibaadadii. fa idaa carafta, markaad ogaato, ana shirka, in ilaahay oo cid kale lala wadaajiyaa, idaa goortii khaalada uu dhex galo alcibaadata, cibaadadii, afsadaha, inuu xumeeyo, wa axbata oo buriyo, alcamala, shaqadii amba cibaadadii la qabtay, wa saara oo uu noqdo saaxibuhu, qofkii sameeyey ee ilaahay cid kale la wadaajiyey, min alkhaalidiina, kuwa ku waara, fi naari, naarta. waxaad ogaanaysaa arrimo dhowra. waxaa ka mida buu ihi carafta, waxaad ogaanaysaa ana ahama, waxaa u muhiimsan maa arrimaha calayka ku saarani,
macrifatu dalik inaad barato arrimahaas inay tahay ood ogaato khatarta uu leeyahayba halkaas shirkigu. wacalla waxaa laga yaabaa allah in ilaahay an yukhallisaka inuu kaa madax furto min haadihi shabakadan ama dabinkan ilaahay kaa furto. wahiya dabinku waxa weeye ashirku billaah in ilaahay aad cid kale la wadaajiso alladii shirkigu waa ka qaala allahu tacaala ilaahay ka yidhi fiihi isaga ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in cid kale lala simo oo lala wadaajiyo cibaadada. wayakfiru ilaahay wuu dhaafaa maa duuna daalika dembi kastoo intaa ka hooseeya laakiin wuxuu u dhaafaa liman yashaau ciduu doono. wadaalika taasina bimacrifati waxay ku suurto gelaysaa inaad ogaato 4 qawaacida qaacido dakaraha allahu ilaahay sheegay tacaalaa koreeye fii kitaabihi kitaabkiisa. alqaacidatu اluulaa halkaasaynu ku joojinaa in shaa allahu tacaala. darsiga ku xiga ayaan halkaa kasii wadi qaacidada koobaad haddii ilaahay idmo. asalaamu calaykum waraxmat ullah.